xagee bay ku jirtaa halkaa madaxay ku jirtaa maxay leedahay waa jihaaska ugu culus ee adduunka saaran waxay leedahay ilaa iyo 100 bilyan oo unug maskaxeed bay leedahay 100 bilyan oo unug maskaxeed in yaroo ka mid ah 10% annagoonan isticmaalin ban adduunka ka tagaynaa dadku waxay wada dhashaan iyagoo intaas leh markay dhashaan ayagoon 10% isticmaalin adduunkay dhaafayaan su'aasha isweydiinta le waxay tahay hadday isku in yihiin maxaa kalifay qofka inuu caqli badan yahay oo ka sunna cas yahay oo kanu cilmi badan yahay waxaa kalifaya saad hadba u tababarto waay maskaxdii marka loogu talagalay inaad khayr ku tababarto quraan ku xafido sunnada ku xafido haddaad ku xafido waxaan u qalmin iyo heeso iyo hadal shayaadiin ay tiri iyo magacyadooda iyo muuqaaladooda iyo say u labisaan iyo say u hadlaan iyo moodadooda nicmada ilaahay marka shuurgeeda xagee buu aadayaan su'aasha meesha ku aadan xagee bay u baxaysaa waxaa la yiraahdaa laba xabo oo faasuuliyada inta la saaro in la mid ah waxaa lagu xafidi karaa 2,000 oo mujallad waa lagu xafidi karaa laba xabo faasuuliyada inta la saaro oo maskaxda ah waxaad ku xafidi kartaa 2,000 oo mujallad baa lagu xafidi karaa waana la kubcin karaa haddii marka qofka la yiraahdo مثلا يعني maskaxdaada maxaa ku jira miiska soo saar ama quraan han noqdo ama xadiis han noqdo ama intii wacdi la maqlayay waxa laga yaabaa qofku inuu diyaar isaga yahay maalin walba in wax loo sheego oo uusan gaarin maalin uu khayr ka qayb qaato haddii la arko maalin uu mushaaraka leeyahayna musharakadiisu ay noqoto musharaka naftiisa dhibayso aakhirada meel daran u dirayso wal ciyaadu billah waxa marka waa lagu weydiinayaa oo waliba maskaxda noocaasa in laga ilaaliyo lagu ilaaliyo wixii ilaahay uu raallida kamid ahaa waxay kamid tahay shukriga kamid ibn Abbas maxaa laga soo wariyaa marka meelaha heesaha ay ka daaran yihiin iyo uu marayo dhagaha inuu farta gashan jiray limaada meeshaas inta uu marayo wixii ku soo dhaco dhagahiisa maskaxdi baa qabanaysa yani xifdiga quwwatu xifdi wuxuu ka gaaray mustawa ajiib ah oo isaga nuuciisa kala lagu arag muxuu isticmaalay oo kalifay inuu sidaa noqdo kaliya wuxuu isticmaalay si saxda ah laga rabo inuu adeegsado marka waxa weeye xishoodka ilaahay qaybta ugu horeysa madaxa iyo waxa uu weelayay oo maskaxdii ugu horeysay indhihii sankii afkii dhagihii inuu qofku ilaaliyo maxaa kale afka laga ilaalinayaa oo lamid ah in afka isaga lagu cuno ama lagu qaato wuxuu ilaahay subhanahu wa ta'ala raalika ahayn illa afku waa kii caloosh u furraaway midda xigta maxay tahay ilaahay looga xishoonayo wal batna wama hawa waxa la yiraahdo caloosha iyo waxa ku hareeraysan iyo wixii uu hareeraysay oo maxay noqonayaan waa calooshii lafteedii urku jirteedii farjigii waa loo majra lugihii inaadan lugaha xaaraan ugu soconin waa kow farjigii inaadan xaaraan ku samaynin maskaxdii inaadan xaaraan uga fikirin raashin xaaraana inaadan gelinin limaada حديثك ولو سحديث وحلقة شيء كل لحم نبت في حرام فالنار أولى به يعني أما بس كل لحم نبت بحرام فالنار أولى به يعني هيلب والباء أو كصوب أو كوكب حرام نار تاني عنتو استاهل كسوي بقول مركب حلو بهاي مركب علوشة إلا إلاليه حرام لقي إلاليه وبقت لقي إلاليه علوشة مركب دركتا أنت بدن ويمادا عسيان ويمادا مركب علوشة دركتنا cabsida ilaahay qalbigaaga inay ku jirto farjigu uusan aadin xaraan baa loo baahan labadaas inaad ilaaliso weeye ilaahay subhanahu wa ta'ala xishoodkiisa maxaa weeliya iyo wa an tadhakkara al-mawt wal bila inaad xasuusto geerida iyo baali noqoshada bari baad tirmi doontaa sidii marad u googo'i doontaa hilibka kan dixri baa cuni doona lafihi baa dhamaan doona waxay isu bedelayaan carro halka waxa loogu tagayaa ciqaab ama raxmad baa loogu tagayaa wad geeriyoonaysa wad dhimanaysaa wadhee dhimanaysa adduunka wad ka jaan qaadaysa xaaladaad kaga baxdo ayaa lagu soo saaraya waxaad ka shaqayn jirtay ayaa laga abaal marinaya waa ma jir marka sidan ma ahaanays allah ku keenay amar uu leeyahay iyo jaangooyadiisa ku timid allah ka kaxaysanaya maalin la isla ogyahay baa lagu kaxaynaya telefoonku soo dhici maayo email heli maysi facebook ka akhrisan maysi soo taagayo rajale baa lagu kaxaysanaya maxaa ka sii dambeeya god yaro ciriiriya inta lagu dhaxgeliyo meesha jirkaaga intuu ku baabao lafahaaguna ay tirtirmaan oo waliba haddana ay dheer tahay ciqaab ama naciimo ay dheer tahay sidaa darteed maanta haddii aad fiican tahay
xasuusnow maalin unbaad dhiman doontaa sidii kuwa ka horreeyay u dhinteen markaad dhibatana waa lagu abaal marinaya jirkuna waa baabi'i doonaa taa marka qalbigaaga markaad ku soo xaadiriso waxay ku sii dhiibaysaa ilahay inaad ka xishooto subxaanahu wa tacaala waman araada alaakhira nabigu muxuu ku daray salawaatu ullahi wasalaamu calayh qofkii aakhiro doono taraka ziinata addunya aakhiro qofkii doonaya oo annagu aakhirada waxaan u haysanaa meel dhimatay oo lagu kala tegay oo balaa'i ka dhacday maya saas ma aha adduunkan meel ahayn tanaa gurig baay ah ma garanaysaa tan baa naloo keenay in nalagu imtixaamo waayo alla qur-aanka muxuu ku sheegayaa wa ina addaara alaakhirata lahiya alxayawaan ma garanaysaa wabtaqi fii ma aataaka allah addaara alaakhira waxa alla ku siiyey oo dhan aakhiro ku doon limaada xaggay ku badantah walalaakhiratu khayrun laka min aluulaa waalaakhiratu khayrun wa abqa ma garanaysaa yacni wallahu lmustacaan yani aakhirada waa meesha aynu dhisayno waa meesha raasumaalka ah waa meesha qof adduunka yimid uusan seeraynaynin inaadan adduunka wax badan joogin baa laga yaabaa laakiin aakhira maxaa laysku hubaa inaad weligaa joogayso weligaa inaad joogaysid marka wuxuu yidhi qofkii aakhirada noocaasa xasuusta buu yidhi oo doona nabiga salawatullahi wasalaamu calayh dhaldhalaalka adduun iyo macna darradiisa iyo foolxumadiisa iyo walwalkiisa iyo walaaciisa iyo murugtiisa iyo waa isaga tagaa muxuu ka fikiraa meesha tan waxay ka dhigan tahay 2 saacadood oo warqad imtixaan lagu hor dhigay jawaabahana lagu sheegay ha gafin jawaabta hana ku mashquulin wax kale athar baa la soo wariyaa in nabi nuux lagu yiri isagoo noolaa 1000 sano iyo ka badan oo reerkiisa markii loo soo dirayay 40 jir buu ahaa 950 sano waa u digay duufaantii baa timid wuxuu sii noolaa dhowr boqol sano oo kale ayuu sii noolaa oo dadka muuminiinta uu sii daadiinay imisuu nool yahay 1300 sano kale kaasa waxa la yiri waxa iimaanaysa ummad gadaasha umrigeeda uu yahay 60 iyo 70 say kula tahay isaga la weydiiyay adduun say kula yahay baa la yiri horta markii la oofsanayay kaasa wuxuu yiri igama duwana guri aan dhinacan ka soo galay oo 2 albaab leh oo aan albaabka kale ka baxay biir ninkii 1300 sano adduunka soo taagnaa bal kum uga dhigba ba muxuu adduun oo dhan ka dhigay halkaasaan ka soo galay halkaana waa ka baxay qiimo kala ma lahayn mushkila ummad baa ka dambayso iman doonto 60 ama 70 umrigooda dhan uu noqonaya bilow ilaa dhamaad maxaad ka leedahay kuwa haddaan ku jiri lahaa buu yiri sujuudan galo geerida igu iman lahayd buu yiri macnaheedu waa maxay waqti ma haysano time ma aha wuxuu yani waxa la isweydiinayaa aakhiro markii ahlu naarka naarta la geeyo kam labithtum fil ardi adada sinin war adduunka intee baad joogteen maxay oranayaan way isweydiin labithna meeqa yawman aw ba'da yawm maalin ama maalin barkeed kariyan joognay 70 sano ba maxay u ekaanaysaa maalin garinkeed 90 sano ba maxay u ekaanaysaa hal maalin 120 sano ba waxay u ekaanaysaa nus maalin waxa ma qiimay leedahay inaysan qiimanahayn daliil waxa kuugu ah saaka soo laba soo quraacani soo ma macaanayn hadda dhadhankeed yaahaya cunna kana rabna soma muwaxasa macna leh aaw dhadhankii fiicnaameeye shalay cuntadan cunay khatarteeda aaw maya ma jirto maxay ku tusaysaa waxay ku tusaysaa okay cunnadii fiicnayd oo macaanayd oo aan cunay anigoo sito oo adduunkii marahayo isla fiican oo labisan bay caloosheeda ku dhaxlaabaysaa qofka waxaas xambaarsan ma inuu ka kibra aakhiro iyo meeshii darajada ay tiilay oo aan suuli iyo saxari iyo kaadi mid aan lahayn miyaa u beegtoon mise waqtigiisa inuu kaga mashquulo tan sidii uu nabadgeli uga gudbi lahaa maxaa keenaya waxa keenaya ilaahay in laga xishoodo waman araada alaakhira taraka ziinata addunya faman facala dalik intaa qofkii sameeyuu yidhi faqad istaxyaa min allahi xaqa alxayaa ilaahay xishoodkiisii dhabta ahaa ayuu ka xishooday buu yidhi nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa xishoodka dhabta alle uu leeyahay subxaanahu wa tacaala waa xishoodka ilaahay waaye waxaa ka sugan xadiid kale in nabigu nin uu weydiiyey oo ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh rasuul allahu dardaaran isii
markaasaa wuxuu yidhi uusiika an tastaxyiya allaha caza wajalla kamaa tastaxyiya rajulan saalixan min qowmik waxaan kuu dardaarmayaa inaad ilaahay uga xishootid si la mida sidaad uga xishoonaysid nin saalix oo tolka ah nin wanaagsan oo laga hiibaysto oo la jecel yahay oo dadku ka dambeeyaan oo la ciseeyo ninka agtiisa ee darro laguma sameeyo soo ma ninkan noocaas ah sidaad uga xishoonaysid alla uga xishoo buu yidhi subxaanahu wa tacaala aqwaashii salafka maxaa ka mid ahaa laa tajcal illaaha ahwana annaadiriina ilayk ilaahay ha ka dhigin dadka ku eegaya ama inta ku eegaysa kan ugu liita oo maxay tahay makhluuqiisa inaad ka boqdood ka xishooto isagana aad kula dhiirato wax makhluuq hortooda aan ku samayn karin walciyaadu billah saa darteed baa ilaahay xishoodkiisa waxyaabaha sii dhabaynaya ay ka mid tahay markaad keligaa tahay inaad ilaahay ka xishooto subxaanahu wa tacaala inaad ilaahay ka xishooto oo xishoodkaasi uu kugu kallifo alla aad ka xishoonayso inaad samayso wax ka fiican wixii aad samaynaysa markaad dadka la joogtid limaada dadka kan kuma keenin ku abaalmarin mahayaan una tegi maysa berritoole ciddii ku keentay ood u laabanayso berri abaalka aad ka sugaysa rabbulciza weeye saacad walbana waa ku eegaya wuxuu yidhi ninkii gabyaaga ahaa imaam alqaxtaani waidaa khalowta biriibatin fii dulmatin wannafsu daaciyatun ila aطugyaani faاstaxyii min nadari اlilaahi waqul laha ina aladii khalaqa adulaama yaraani garanaysaa yacni wallahu lmustacaan haddii nafta aad meel shaki leh oo weliba mugdi ah aada la gasho oo ay kugu yeeraysa inaad qooqdood alle ka furato ka xisho fiirada alle subxaanahu wa tacaala oo nafta waxaad tidhaahdaa ina aladii khalaqa adalaama yaraani allihii mugdiga abuuray iyo gudcurka ayaa ay arkaya allihii gudcurka abuuray ayaa ay arkaya oo qofka maxaa loo baahan yahay inuu waxa weeye muraaqabada ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ku kallifto inuu maxaa la yidhaahdaa uusan u dhaqaaqin una hambaasin ilaahay muxaramaadkiisa waaya xilliga khalwada la joogo qofka inuu gafo oo khaladaad uu ku dhiirado uusan ku samaynaynin dadka hortooda waciid adag baa ka soo arooray waayo nabiga waxaa ka sugan inuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh laaclamanna aqwaama min ummatii ya'tuuna yowma alqiyaama bixasanaatin amhaali jibaali tihaama biidan fayajcaluha allahu caza wajalla habaa'an manhuura waxaan ogahay buu yidhi aqwaam ummaddayda ka mid ah oo la imaan doona maalinta qiyaamo xasanaad iyo ujuur la mid ah buuraha tihaamo oo kale oo weliba cadcad nadiif iyo quruxsay u yihiin markaasuu ilaahay burburinayaayo eber ka dhigaya hawbaan wuxuu yidhi yaa rasuula allah sifhum lana jallihim lana anlaa nakuuna minhum wanaxnu laa naclam noo tilmaan kuwaas inkaartu ay ku dhacday oo ummaddaada haddana sheeganaya si aanan iyagoo kale aanan u noqon noo caddee nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi amaa inahum ikhwaanukum wa min jildatikum waya'khuduuna min alleyli kama ta'khuduun walaakinahum aqwaam idaa khalow bimaxaarib illahi intahakuuha wuxuu yidhi waa walaalihiin oo waxa weeye isku dhiig iyo isku jiir baad tihiin oo isku meel baad ka soo jeedaan wey macnaheeda habeenkii intaad ka qaadataan bay ka qaataan oo hurdida iyo cibaadaba ah ha yeeshee waa aqwaam markii ay gaar noqdaan oo ay fursad u helaan xaaraan inay sameeyaan ilaahay xuduuddiisa ku tuntoo burburiya arrintaasu marna haysta maalinka maanta ah qofkii hadda wuxuu nool yahay isagoo dhowr qof ah oo isku dhex jira markuu masaajidka joogo waa qof guriga markuu joogo waa qof kale shaarica markuu joogo waa qof kale shirka markuu joogo waa qof kale qur-aanka markuu ka baxayo waa qof kale markuu galo social mediaha iyo facebookana waa shaytaan sawriiqadhama qofka lahjadiisa waxa uu ku hadlay aasaaskaba muxuu yahay magac isticaaro beenuu wataa garanaysaa masawir feegana waa u saaran yahay waxa qofka uu faafinayo tatacajab kull alcajab waxyaabaha noocaasa marka wax beri la iska daba tagayo wey oo la isweydiinayo wey marka muxuu samaynayaa wanaaggiisuu dadka u muujinayaa markii dadka ay ka qarsoomaanna allihii mar walba arkayay uu xumaato uu dad kale xishoonayo ku samaynaya walciyaadu billah saa darteed waa muhiim jiddan xilliga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waxa weeye keligii ku daalacanayo inaad uga xishooto si la mida si ka weyn si aad dadka uga xishoonayso qodobka xiga waxa weeye alxayaau min almalaa'ika malaa'igta in laga xishoodo
وصوتك حشونيسا وكل جوكتا آيات محياهي والله المستعين يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين يوم الدين كي حساب تمالين كذا بين نيسان وحانا دشينا هذا كويدين إلى كراما شرف بدن كاتميرا